waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janaalka Ustaad Saciid Training. waxaynu guda geli doonaa qaybtii 14aad ee casharadeenna inoo soo socday. qaybtan aa ujeedaa waxaynu ku baran doonaa sida loo diyaariyo iidhahyada ama xayeysiisyada sida musharaxiinta ama goob kasta oo adiga aad doonaysid inaad xayeysiisatid. sida halkaa ooga jeedaan backgroundku waxa uu leeyahay color. marka waxaa jira qaybo kale oo halkan ku jira sida qaybtan backgroundku waa cadaan. designka waxay kala gedsan yahay qayb kale oo ayana halkan kusii jira. taa macnaheedu waxay tahay in kalaro badanna meesha ay ku jiraan. aabka aragtidna adigu aad jeceshahay aa u design garaysan karaysid. marka waynu guda gelinaa ina waxaynu sawiraynaa qaybtan hore. si aynu guda galno qaybaha waa iska saaraynaa qaybahan. page cusub baynu soo furanaynaa. siskaas ku jira baynu qaadanaynaa shayban barirka 10 inji wey halbeegaynu isticmaalana waa guda gelinaa. halkaa markaan joogna layer baan soo furanaynaa. isla mar ahaantana waxaanu qaadan doonaa angalkaas aynu soo qaadanaynaa waa halkaas aynu saarana. markaynu saarno qaybtan baan tegaynaa. backgroundkaan rabnaa kalarinaas kalaradaas oo dhan baa ku jira. kan baynu qaadanaynaa ku jira baynu qaadanaynaa. halkan baan la imanaynaa. halkaasaan ku qabanaynaa. kadibna hoos baan soo saarna waa sii doonaynaa. intii aynu ka rabnay intaa weeye control D baan leenahay. kadib halkaa markaan joogno waxaan u baahan nahay mastarad waxaan oraynaa control R. kadib waynu haysanaa. kadib qaybtan baynu qaadanaynaa. waxaynu geysan doonaa halkaa ama aadan geysanaynaa. mid kalenu u baahanaa soo qaadanaynaa. meeshaasaynu dhiganaynaa. kadib layer kalenu furanaynaa. kalarkaana soo buluugu waa noo dooran yahay. halkaasaan ku dhufanaya marka. kadibna geeskaa kale. kadibna halkaasaan ku dhufanaya. kadibna halkaa control loo baahna. halkaasaan uga tegaynaa qaybtaas. halkaasaynu uga tegaynaa. waxaynu samaynaynaa layer labaad baynu samaynaynaa. soo qaadanaynaa cadaan soo qaadana. waxaan sawiraynaa calanka Puntland looga yeedhaaye. kadib halkaasaan ku dhufanayaa. okay laakiin waan ku dhufanayaa. halkaasaan ku dhufanayaa. waxaan soo furanayaa layer kale. kalarkaan bedelanayaa cagaar baan soo qaadanayaa. kadib isla sidii oo kale halkaasaan tegayaa.
halkaa markay joogto waxaan samaynayaa shaybanka waxaan rabaa labada kale inaan kasoo hoos mariyo anaan qabanayaa hoos kusoo geenayaa qiimo halkaa tahay lama rabo inaan rabaa inaan qabsado shayban shabtu shabturi baa markaan rabaa inaan soo qabto inaan labadaydaan kasoo hoos mariyo marka hadda shayban baa koreeya shabtu baa ku xiga shabturi baa ku xiga wax yar baan caddaanka kor u qaadayaa kadib cagaarkaan imanayaa wax yar baan kor u qaadayaa dhinacaas baynu ku dhaafi doonaa okay waxaa inoo haray qoraal baan soo gelinaynaa qoraalka markaan soo gelino waxaan oranaynaa bartimaha ku aadisanaynaa kadibna select baan qoraalka halkaa inoo joogo waxaynu ku darsanaynaa qoraallaynu ku darsan doonaa waxaanu soo dooranaynaa bartii aan u baahnayn kadib halkanaan imanaynaa qoranaa musharax dadkana degmada sharax gudoomiyaha degmadaay intaa kadib hoos baan imanaynaa bartaynu bedelaynaa markan waynu ka dhigi doonaa tan gobolka magaalo saasaynu ka dhigi doonaa marka waynu arrange garaynaynaa ama waa habaynaynaa okay hadda waxaa inoo dhiman inaan soo gelino
sawir baynu soo gelinaynaa sawirka background buu wataa horey baan u soo baranay backgroundka ka jarayna kadibna delete baan leenahay d baan oranaynaa control t baan oranaynaa si aan u soo yarayno sawirka waan bixinaynaa sawirka waa durkinaynaa control t baan leenahay yar baan hoos u dhigan dhinacaas baan u geenaynaa marka dhinacaas baan u geenaynaa sawirka sidoo kale halkan waxaynu soo gelin doonaa ama halka codadka lagu rido aynu soo dhigi doonaa halkan baan dhiganana dhinacaasaan dhigananaa isagana sidoo kale qaybtan baan tegaynaa waxaan rabnaa inaan customkaan tegaynaa inoo dooran yahay qof baynu wax calaamad qof leh baan diyaarinaynaa qof codaynayo kale marka waynu soo qaadanaynaa isna halkan aan dhigayna aynu ka matelaynaa qof codaynayo kale isagana dhinacaasaan u daynaynaa waxa keliya oo inoo dhiman waa circle aynu halkaas hor dhigno layer baan samaynaynaa halkan baan tegaynaa circlekaanan qaadanayna halkaas adhan ku siinaynaa colorka waynu bedelaynaa waxaan ka dhiganaynaa blue kadibna stroke baan u baahanahay stroke baan dooranaynaa stroke marka wixii adiga aad jeceshahay baad dooranaysaa aan iska dooranaynaa marka waxaa ka dhigaysaa stroke kadib control t baan oranaynaa alt shift baan qabananaa kor baan u qaadanaa kor baan geysanaynaa control t baan leenahay wax yar baan yaraynayaa alt shift baan qabanaya wax yar baan yaraynaya dhinacaasaan u dhaafanayaa
inahaasaan u dhaafanayaa waxaan ku samaynayaa xidig baan dul saarayaa meeshii baan tegaynaa booligan baan dooranaynaa kaasaan dhan ku siinaynaa baan leenahay waxaan ka dhiganaynaa caddaan okay baan leenahay stroke baa ku jira strokean ka saarnaa waa xirinaa kadibna control T baan leenahay tuusinanaa horta tuusinanaa alta shift baan qabananaa waa yareynanaa control T baan leenahay alta shift baan qabananaa waa yareynanaa waxaasaan ku dhaafanaa waxaasaan ku dhaafanaa waxaan samaynanaa waxaan rabnaa inaan ka bedelno kalarka dhinacyadan waxaan rabnaa kalarka xogaa inaan ka bedelno madow iyo kalarka had saaran click baa leeyahay plan option baa tegayaa qaybtan baan dooranayaa u baahnaa kuma jiro marka tan baan tegayaa qaybtan baan dooranaya kalarkaas baan u baahnay baan leeyahay isla kalarka laftigiisa waxaan ugu baahnahay inaan degmada isna saaro intaana tegin kan baan ka koobiyanayaa right click baan leeyahay waxaan oranayaa kadibna copy layer tanaan tegayaa right click baan leeyahay waa ku baasti kareynaya kalarka waa kan waa isbedelay qaybta kale waa dooranayaa right click baan leeyahay plan option baan tegayaa kadib pattern baan dooranayaa kalarka u baahna halkan ma jiro marka halkaasaan ku dhufanayaa kalarka halkan wuu igu jiraa wax badan baa ku jira marka kanaan qaadanaya baan leeyahay waxaan u malaynayaa hadda wax ka dhiman sawirka inaanu jirin marka isku xiraysidna alta control A baa oranaysaa kadibna control E baa oranaysaa ama control G kadibna save waa wada garanaysaa file baa tegaysaa save baa leedahay documentiga aragtida ku save garaysanaysaa kadibna save baa leedahay markaas ayaa qaybtaan ku bedelanaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.